degmada luuq wayna deeqdaa guriyaha la gubay sandaqadii ay wax ku gadanayeen la gubay xaaladda degmada luuq ee gobolka Gado oo weli kacsan iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxayo dagaalka halkaasi ka socdo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ku matala gobolka Gado oo baaq nabadeed u diray dadka walaalaha ee ku dagaalamaya luuq ganaane ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dagaalka ku biiray iyo sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyaha degmada luuq oo magangeliyo weydiistay Itoobiya isla markaana lagu qaaday mid ka mid ah diyaaradaha Itoobiya muuqaalkan ayaan xogahaas oo idil ku qaada dhigi doonaa daawadayaal laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin bogaana follow soo dhaaf si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran mahadsanidin aynu ku bilawnay waxa faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan xiisad kacsanaan ah oo weli ka taagan degmada luuq ee gobolka Gado degmada luuq ayaa shalay ilaa iyo maanta waxa ku dagaalamay laba beelood oo walaalaha oo halkaas wada daga iyadoo dagaalku uu aad u xoogeystay uuna gaaray heer ay isdhaafiyaan suuqyadii ugu waaweyn ee degmada luuq ganaane labada beelood ee halkaas ku dagaalamaya qasaaraha ayaana kor u sii dhaafaya dhimashada 13 qofood halka dhaawacuna uu tirabeel yahay iyadoo suuqyadii ugu waaweyn degmada luuq ee gobolka Gado ay dab qabadsiiyeen labada beelood ee halkaas ku dagaalamaya suuqa waratada degmada luuq ee gobolka Gado oo suuqi ugu weyn ayaa gabi ahaanba burburay ganacsatada oo xalay ku seexatay iyagoo hantiilayaal ah ayaa caawa ku seexanaya iyagoo wax hanti aanan haysan xitaa wixii ay dabka ku shuban lahaayeen caawa aan gacanta ku haynin taa oo ay ka dhaxleen dagaalka labadani beelood ee walaalaha ku dhaxmaraya degmada luuq ee gobolka Gado kaas oo dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeeshay maadaama waxyeelo aad u baasan uu gaarsiiyay dadka ganacsatada ah ee dagaalkani aan shaqada ku laheena iyadoo labada beeloodna wax walba ay sameynayaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wararku ay sheegayaan in dagaalkani ay ku biireen isla markaana xaaladda dagaalka ay faraha ay ka sii baxday taas oo arinta sii hurinaysa ciidamadii dawladda ee la filayay in dagaalka ay ka qayb qaataan sidii ay u joojin lahaayeen oo dagaalka ka qayb qaadanaya isla markaana labada dhinac la kala safanaya ayay wararku ay soo warinayaan iyadoo la arkay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo labada dhinac la kala safan sida ay inoo wariyeen dad goob joogayal oo ku sugan degmada luuq ee gobolka Gado wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in dagaalo wali ay ka socdaan qaybo kamid ah degmada luuq ee gobolka Gado iyadoo baaqiyo nabadeed loo diray labada beelood ee walaalaha ay halkaas ku dagaalamaya geesta kaleeto xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolka Gado ayaa waxa ay baaq nabadeed ay u direen walaalaha halkaas ku dagaalamaya iyagoo xusay in wax walba oo nabadda lagu xalin karo ay diyaar u yihiin xildhibaanada inay ka qayb qaataan isla markaana labada beelood ee walaalaha ay halkaas ku dagaalamaya ay joojiyaan dagaalka waxa ay sheegeen xildhibaanada in waxyaabii aas-aasiyaadka u ah degmada luuq ee gobolka Gado ay isdhaafinayaan labada beelood ee walaalaha iyadoo la gubayo guryihii ay dadka seexanayeen sidoo kale goobihii ganacsi ee dukaamanka iyo sidoo kale suuqyadii ugu waaweyn degmada luuq ganaane oo ay ku tiirsaneed isku socodka bulshada ku nool degmada luuq ee gobolka Gado maadaama suuqyada ugu waaweyn luuq ay ahaayeen kuwa 80% ku tiirsan dadka ku nool degmada luuq ganaane isla markaana labadani beelood ee walaalaha iyaga oo aan u aabayeelin dadka masaakiinta ee waratada iyo sidoo kale kuwa kale ee ganacsatada ay dhammaan dab qabadsiiyeen suuqyadii ugu waaweyn degmada luuq ee gobolka Gado dhanka kaleetana ugu dambeyntii warar kala duwan oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan gudoomiyihii degmada luuq ee gobolka Gado in uu weydiistay magangeliyo dalka Itoobiya daroontani aad u jeedaan daawadayaal waa daroonta ay isticmaalaan Itoobiya waxa ay qaadaysaa isla markaana degmada luuq ee gobolka Gado oo xaalad halis ah gacmaha kula jira ay ka samata bixinaysa gudoomiyihii degmada luuq ee gobolka Gado kaas oo ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana hore dagaalo kala duwan ula galay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe kadib markii ay isku qabteen arrimo dhowr ah oo la xiriira maamulka gobolka Gado iyo sidoo kale degmada luuq ee gobolka Gado daawadayaal gudoomiyaha ayaana magangeliyo weydiistay kadib markii xaaladda ay xumaatay maamulka Itoobiya ee ku sugan degmada luuq ganaane iyo sidoo kale gobolka Gado isagoona halkaas looga samata bixiyay mid ka mid ah diyaaradaha helicopterka
oo ay isticmaalaan Ethiopia isla markaana ay u isticmaalaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha kooxda al-shabaab diyaaradan aad u jeedaan ayaana lagu samata bixinayaa gudoomiyihii degmada Luuqa maadaama aanan dhulka la marsiin karin xaaladda degmada Luuqna ay tahay mid jiq isku ah oo ay dadkani walaalaha ay ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gado wali ay isku hor fadhiyaan goobihi ay dagaalka ka dhaceen walow goobaha qaar ay wali ka socdaan dagaallo u dhaxeeya labadani beelood ee walaalaha حيسدا أيانا أمد أد وكعسن لبداني بيلود أيانا وحى لو ديريا باقي كلا دوون iyadoo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ku matala gobolka Gado iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gadoba baaqyo kala duwan oo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaad beeleedyadani ka dhex bilowday labada beelood ee walaalaha ee degmada Luuq ee gobolka Gado sidii ay u joojin lahaayeen ay bilaabeen waxaana baaqyadani kala duwan lagu faray dhinacba in ay joojiyaan dagaalada sukeeye ee ahliga ah kuwaasi ee ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gado daawade hadii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saar si share garay oo la wadaag saaxiibada bogaana follow soo dheh mahadsanid